جاليدا Soomaalida ee ku nool dalka Mareykanka ayaa si diiran u soo dhaweeyay Suldaan Cabdisalaan Suldaan Maxamuud oo soo gaaray magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota isagoo suldaanka martiqaad ka helay xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York isagoo tababar iyo cashiro la xiriira xalinta khilaafaadka siiyay madaxda qaramada midoobay maadaama suldaanka uu aqoon durugsan u leeyahay arrimaha la xiriira xalinta khilaafaadka sida uu sheegay aqoonyahan Daahir Mire Jibriil suldaanka waxa martiqaaday qaramada midoobay waxaana ku martiqaadeen New York waxaana loo martiqaaday in uu tababar siiyo madaxda United Nationska inuu tababar siiyo oo tababar ka siiyo sida loo xalin karo khilaafaadka waxa weeye nin Soomaali ah oo isim ah oo aqoon-yahana oo haddana jaamacadaha Mareykanka Harvard iyo Princeton ba la yiraahdaa waa ugu darajo sareeyaan laga martiqaaday oo United Nationska laga martiqaaday oo macallin noqda دكتور الشيخ عبد الرحمن الشيخ عمر oo gudoomiyaha gudiga shurada ee jamciyada islaamiga ah ee waqooyiga Ameerika iyana ayaa sheegay in ay muhiim tahay in la dhageysto salaadiinta Soomaaliyeed ee u taagan nabadda dalka Soomaaliya laana suldaanka hadaan la maqlin oo aan taladiisa la raacin oo laga dambeyn ra'yigiisa waxba tari maayo wax qabashadiisa marka waxaan u baahanahay salaadiinta runtii maanta Soomaaliya riski ku jirta ummad waxa riski kulligeed ku jirto waa ummad islaysay dhibaato badan dhaxtaalo hadana waa dad walaalo ah oo isku hilba ah oo aanan meel kala jirin xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka tirsan golaha wakiilada ee gobolka Minnesota isla markaana ka soo qayb gashay munaasabadan lagu soo dhaweynayay Suldaan Cabdisalaan Suldaan Maxamuud ayaa sheegtay in ay ku soo dhaweynayso gobolkeeda habeen wanaagsan aadi aadan ugu faraxsanahay in aan caawi meesha xafladaanay sharafta badan idin kala soo qayb galo Suldaan Cabdisalaan Suldaan Maxamuud soo dhawow aadan ugu faraxsanahay in aad waqti nala qaadato oo aan magaaladeena aan kugu soo dhaweyno waxaana rajaynayaa in sharafta inta lagaaga soo dhaweeyay meel kasta oo aad tagtid munaasabadani ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ahayd gudoomiyaha u dooda xuquuqda dumarka ee Puntland Soomaaliya ee gobolka Minnesota Hodan Aadan waxaana sidoo kale munaasabadani ka hadlay qaar kamid ah odayaasha dhaqanka iyo culimada iyagoo si isku mid ah u soo dhaweeyay Suldaan Cabdisalaan Suldaan Maxamuud oo marti ku ah gobolka Minnesota intaas kadib waxa mikrofoonka lagu soo dhaweeyay Suldaan Cabdisalaan Suldaan Maxamuud oo ugu horeen ka mahad celiyay sida loo soo dhaweeyay isagoo ka sheekiyay marxaladaha iyo horumarka dhanka nabadda ee laga gaaray dalka Soomaaliya Soomaali waxa leeyahay isku diin hay maxaa kale la yiraahdaa waa isku dad waa isku af waa isku dhaqan waa isku eegyihiin lama kala sooci karo laakiin kala qabaa'il weeye waana arinta dividing factor ka ah na kala qaybinaysa waa arintii ahayd inay quwad inoo noqoto wa min aayatihi ikhtilaafu ألسنتكم والوانكم وآية من آيات الرحمن إن كلا دونا هي وقف عيلية قف عاتية قف ديرية قف جامية دتك لا وقف وسكوج ومتشران سوى بس وجوج متشران سوماليدو إن كلا قبائل دونتهاي قوة وية وقيمة وية ونعمة من الله أنا جا وحاول جنرد جرينا إن عذاب كدقنو Soomaali waa Rambo waa jeegan waa kansar roobaad qurux waa muunad waa sharaf waa milgo waa inaynu ku faanaa waa inaan ilaashanaa reer hebel ninku haduu yahay dugsi weeye waa ardaa war aynu garanayno inay saas noo fiican tahay si kastaba ahaatee bulshada Soomaaliyeed ayaa milgo iyo karaamo u haya salaadiinta Soomaaliyeed iyagoo ka rajaynaya in ay ku maamulaan bulshada daacadnimo codkarnimo la kacabsi runsheeg iyo karti maadaama ay hogaaminayaan bulshada Soomaaliyeed oo dhan Maxamed Muuse Nuur Deeq Darajo University fi Minnesota